haddii aad akhrido konton buug sanadkii macnaheedu ma ahan inaad wax baratay ama aad ku guulaysatay ama aad noqotay aqoon-yahan, maadaama aan sidaas loo cabirin. qof baa leh konton buug ayaan akhriyaa sanadkii, laakiin su-aasha muhiimka ahi waxay tahay imise buug ayaa kugu dhiirigeliyey waayo-aragnimadooda oo bilaabay inay kugu dabaqaan qeybaha noloshaada si aad u adeegto oo aad faa'iido ugu hesho. haddaba waxaad isweydiisaa mustaqbalka dhow ama mustaqbalka fog ma ku leeyihiin saameyn. akhri inta buug aad jeceshahay sanad walba, laakiin haddii aadan ka faa'iidaysan ugu yaraan mid ka mid ah, waxaa fiican inaadan akhrin gebi ahaan. daawade, adigu imase jeer ayaad buug akhrisaa? imase buug ayaad akhrisay? keebaa ahaa midka kugu saameynta badnaa mase ku saameeyey buugaad akhrisay? commentiga nagu rag, janaalka hadaa ku cusubtahay subscribe saar si kusoo garan muuqaalada xiga.